Samirku waa mid ka mida waxyaabaha ugu qiimaha badan ee Islaamku dadka baro. Waa awood qofka ka caawisa inuu istaago marka noloshu ku adkaato, uuna u sii socdo xitaa marka qalbigiisu daalan yahay. Nolosha adduunku ma aha mid dhib la'aan ah. Qof walba wuxuu la kulmaa murugo, dhibaato iyo imtixaan kala duwan. Laakiin Islaamku wuxuu ina barayaa in dhib kasta kadib uu jiro faraj iyo fudayd. Alla Qur'aankiisa wuxuu ku yiri inna Allaha maca saabiriin, oo macnaheedu yahay Alla wuxuu la jiraa dadka samra. Ka fikir mid taas, marka qofku samro ma aha inuu keli yahay Alla ayaa la jira. Samirku ma aha mid la waayo natiijadiisa. Samirku waa inaad qalbigaaga ku xajisid iimaan, adigoo og in Alla kuu qorsheeyay wax khayr leh. Nabiyaashii Alle waxay ahaayeen dadka ugu samirka badan. Waxay soo mareen silic, gaajo, dhibaato iyo dadkoodii oo diiday, laakiin ma aysan quusan. Nebi Ayuub calayhi salaam wuxuu u samray xanuun dheer. Nebi Yuusuf calayhi salaam wuxuu u samray xabsi iyo dulmi. Nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku samray dhib badan oo kaga yimid dadkiisii. Laakiin dhammaantood ugu dambayn, Alla wuxuu siiyey faraj iyo guul. Taasi waxay ina tusaysaa in samirku aynu ahayn daciifnimo. Samirku waa xoog, waa iimaan, waa kalsooni aad Alla ka qabto. Mararka qaar qofku wuxuu rabaa inuu dhibaatadiisa si degdeg ah ku dhammaato, laakiin Alla waqtigiisa ayuu u leeyahay. Waxaa laga yaabaa in dib u dhaca aad necib tahay uu noqdo waxa kuu khayrka badan. Samirku sidoo kale wuxuu qofka ka ilaaliyaa inuu go'aano khaldan qaato marka uu xanaaqsan yahay ama murugaysan yahay. Qofka samraa wuxuu fahmaa in xaalad walba aysan weligeed sii jiri doonin. Haddii maanta aad dhib ku jirto, ha quusan. Haddii qalbigaagu dhaawacmay, ha lumin rajadaada. Xasuusnow in dhib kasta oo yimaada uu leeyahay dhammaad. Ducayso, salaada ku dadaal, Alla u dhowow, samirkaagana ilaasho. Sababtoo ah Islaamku wuxuu ina barayaa qofka samraa ugu dambayn wuxuu helaa ajir, nasasho iyo guul. Qofba intuu qof ka samir badan yahay wuu ka guul badan yahay. Mar kasta oo samirkaagu bato, waxaad ahaanaysaa mid guulaystay. Sababtoo ah waxaad ku samirtay ood u dulqaadatay wax kasta oo aad weyday. Waxaana qalbigaaga daalacanaya oo qalbigaaga la socda dhaqdhaqaaqiisa samirkaagana waa Ilaahaagii ku abuurtay oo keliya. Sababtoo ah waxa keliya ee gudahaaga ka socdaahi waxa og waa Allah subxaanahu wa tacaala. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynayaa inuu naga yeelo kuwii u samra xaalad kasta oo ku timaada.